السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa asxaabay intiina naga daawanaysa YouTube-ka Mr. Mire ama Facebook-geena Mr. Mire. Saakay waxaan saaranahay Thika Road. Waxaan u soconnaa meel mool cusub oo hadda la furay oo hadal badan dalka Kenya geliyay oo ganacsatadii Raisli iyo ganacsatadii Gikomba iyo adii wixii ganacsato yar yar ahaay oo dhan ay ka qayliyeen oo ay taagan yihiin waana la ofatay gareey waana la dhacay waana impactiga waddanka ku yeeshay moolkan wasiirkii trade-ka iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba xoogaa barnaamijkaas oo isku yara dhaafeen jam badan buu keenay marka bal moolkan baan rabaa inaan saaka idin geeyo wuxuu gado iyo wuxuu qabto yaasa iskale halkuu ku yaalaa bal waxaan isku dayaa video at least waxa meesha lagu gada iyo waxay gadaan iyo wuxuu qabta iyo aan idin soo bandhiga kolley waad ka heli doontaane ha ka fogaanin TV-ga. Thank you. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabay waxaan nimaanay meeshaan idin sheegay meeshan waxaa la China Center China Square I mean waxay ku taalaa Thika Road waa kana view-geeda banaanka bal haddana bal gudahan gelaynaa iyo say u egtahay bal ila soo China Square say tahay gudaheeda iyo waxay gadayaan meel aad u qurux badan waaye meeshan waa mall tara meesha ma sha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabay meeshaan idin sheegaynaa nimaanay China Square waa tana bal gudaheedan shopping ka soo sameysanaynaa la soo raaca so meesha gudaheeda waa kana you can see maqaaxiyo kala jira business kale oo waa kana gudahan ku sii soconnaa bal aragna waxay gudaha ku haayaan meesha aad u intahay it's huge zito security taagan bal aragna China Square ku qoran welcome waa kan albaabka security meesha gudaheeda xoogaa waa diideen in sawir laga qaado laakiin bal waxaan isku dayaa at least sawiro oo yar inaan dhab idin wallahi meesha wax raqiis ma jiraan been la soo sheegay waa alabta qaybta cableska iyo waxaas bisada side oo ujeeda waxyaalo qaar oo meesha ku yaalaan jiraan laakiin everything ma yaal xataa gabdha Soomaaliyeed ka ganacsanay meesha bahaladan waaba u baahnaay balan hore u sii qaat wallahi alabta 90% waxay qiimo raqiis ma jiraan ba alabta waa qaal zaid yaan been la idin sheegin way ka qaalisan laakiin waxyaalo badan oo laga helin xaafadaha kala laga helaya meeshan oo idin anfacay dadka oo kuwaas iska shop garaysanayaan wallahi dadkeena problem ka haysta kamerada way ka cabsanayaan Soomaali badan aan rabeen meesha ku arkaan waraysta way igu wada dhageysteen ma rabaan inay la hadlaan dadka kalena way rabaan inay hadlaan laakiin af Soomaali ma raba inay idin soo gudbiyo meesha say ahayd markii qaybtan hadda waa qaybta electronics-ka wax raqiis oo meesha ka muuqdana ma jiraan ba wallahi alaabahan oo kale electronic hadda 140 shilin keebaladaas oo kale inaad xaafadaha kale ka helina laga yaabaa laakiin halkan waa u jeedaade way dhooban yihiin marka waana iska raqiis 100 shilin 120 shilin keebalada la gadaaya waa qaybta electronic qaybtan ma sha Allah maamooyin Soomaaliya meesha ku arkay waxay leeyihiin alaabta markii hore intaan way ka raqiisnaayeen markii de meesha la xiray kadib bay qaaliyeeyeen oo kale alaabta electronic muhiim u tahay waxa waaye hadda bahaladan oo kale laga ma helo meelaha kale dukaamo badan kama heli karto waana kana de waana 190 shilin bas too cheap raqiis ma sha Allah qaybtan waa qaybtii ka chargeska iyo waxaas ay ku yaaleen aragtande qiimaha ma xuma 300 meelaha qaarkood laakiin alaabaha qaarkood waa qaal zaid qaybtan waa qaybta alaabaha gymka also waxyaalo badan ayaa yaala qiimaha laakiin ma ahan sida la sheegay hadda kan oo kale 300 shilin 150 shilin ma xumo waa raqiis oo kana waxyaalo kala duwan aad ka heli hadii aan ku dhex jirnaa alaabihii wixii aan gadgadaynaa bahaladan oo aad u tira badan iyo waxyaalahana laga yaabaa inaad meel kale aadan ka helin aad ka aragto meesha laakiin se raqiis ma ahan yaan been la idin sheegin waxyaalo raqiis ma yaalaan laakiin waxyaalo yar yar oo aad u fudud oo dadka ay iska dhayalsadaan laga helaayo oo idin anfici doona marka ila socda thank you qaybtan waa qaybtii bahalkiiga iyadan it's almost everything waa diyaar meeshan wax walba waa ka heli
bahaladan on aad u raadin jiray oo kabaha la geliya hadda I don't know de meelaha kale qiimahooda waxay joogaan hadda meeshan oo kale 2200 shilin qiimaha la gadayo markan marka bal xaafadihiina iyo eriyooyinka joogtaan bal noo sheegay qiimahooda commentiga noogu dhaaf bahalkan waa kan isagoo diyaarsan oo istaan garaysan xataa kii dharka la gashanay waa kan naagta ay hagaajinaysa kuwan xitaa iyagana sidoo kale kabayoosha la gashtaa marka guryo ujeedaan de bahaladan oo kale oo qashinka lagu qaado aad bay idin anfacayaan xaafadaha inta bahalka dhex gelisid wana 200 oo shilin waxa oo hatta waxyaalo local lagu hagaajiyo Kenya wada gadayaan mostly والله walba wixii anfacay isaga yaqaana waxaan isku dayayaa inaan idin capture gareeyo video aad u badan oo at least meesha idinkoon imaanin aad taqaanaan waxa dhex yaal so that aad go'aan ka gaartaan inaad imaadaan oo shopping ka samaysataan waxyaalahan aadka ula yaabo meesha ku arkay waxa kamid ah dad badan oo ka imaaday xaafadihii Isli ama Gikomba oo madow ah iyo Soomaaliba isku jiraan aan arkay oo alaab meeshan ka gadanayo dhahaya Isliyan u geynaynaa oo ka soo gadaynaa Isliyan u wadnaa okay niyo waxaan meesha aad aan kaloon ku arkay alaab badan oo local sauce aan u jeeda oo within dalka Kenya lagu hagaajiyo oo gadayaan alaabtooda mostly dad China bas kama wada imaan qaybtii waayarada iyo tirada ka batay noocyo kala badan oo waayar ay qabaan qaybtano de elektroonigada qaar biya wixii microphone speakers iyo maaragta Kenyaanka aad meesha ugu soo bateen waa xamaalanayaan waa adeeganayaan asxaabay meesha aad bay u kuruleyd bisanka waa ku soo wareeray de waa aragteen meesha sawirkeeda xaqiiqda oo meesha ka jira meesha waxaan ku soo arkay Soomaali badan oo qaarna Isli ka imaadeen madow badan oo Gikomba ka imaadeen oo shopping ka sameynaya meesha oo alaabaha geynaya Isli iyo Gikomba u iib geynaya oo dhahay meeshan waan raqiis wax badan oo qaali oo de Isli ka raqiisana waa ku arkay alaabo badan oo laakiin laga helin Isli iyo xataa Gikombayda oo tiro badan waa arkay sidoo kale gabdho Soomaali oo meesha ku arkay waxay ii sheegeen alaabahan yar yarka oo Isliina laga helin inay intay meeshan ka qaadaan ay xagga geeyaan inkastoo noo diideen inaan wareysano la hadalno marka dib male laakiin sawirka rasmiga oo meesha waad aragteen meesha waxay ku taalaa Thika Road jaamacadda Kenyatta University bay ku dhex taalaa Unicity alda China Square marka imaada wax ka gagata alaabo badan oo laga helin meelaha kale waad ka heli doontaan fadlan hadaad videogan de wax faa'iido ka faa'iiday fadlan la share garay asxaabtaada de naguna dhiirigeli inaad subscribe ta noo sameeysid thank you very much Allah ya izak